jenaraal siciid awil jaamacaare taliyaha jabhadda dulmidiid oo warbaahinta kula hadlay magaalada qardho ayaa ka hadlay saraakiishii dhowaan lagu dilay gobolka sanaag iyo sidoo kale magaalada laascaanood waxaana uu ku eedeeyey xukuumadda somalilan inay ka dambeeyeen dilalkaasi kala dambeeyey geesta kale jenaraal caare waxa uu jawaab adag siiyey barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin tiimbro oo dhowaan warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda somalilan ay ka dambayso fadqalado walba oo ka dhacaysa gobolada bariga somalilan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa barasaabku wuxuu yidhi caara wuu dhoofayaa ingiriisku tegayaa gaadiidkiisina wuu daboolay oo meelbu ku xeraystay haqalalo dhulka haddii alla yidha wasarka doonaa gurigaagana waa aqaanaa insha allah ismaan lahayn anigoo gadab hore ku tirsanayay maanta tifiyada waxaa ka odhan doonaa ismaan lahayn gaarigaagu wuxuu igu yimi qardho waxaan soo saaray maxbuus gacanku dhiglaa ayaan soo saaray oo dilay gabadh markaad qaban kari weyday gacanku dhiglayaashii gobolka inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa cid kasta oo mucaalad ku ah dowladda kulmiye ama musabixi iyo xulufadiisa waa soo dhaweynaya waa arkaysaan boqoradii dalkaa la eryanaya ilaa 1928 ilaa aadaatayn gacanku dhiglayaal ayaa xukumo dalka jamhuuriyadda somalilan 1994 waxaa ka bilaabmay hargeyso iyo burco dagaalkii maryaaloolka la odhan jiray iyagaa waday waxaa ku dhintay 840 ruux burco waxaa ku dhaawacmay oo ku naafoobay 640 iyagaa sabab oo ahaa iyagaa laayay iyagaa dhaawacay maantana inay madaxweynayaal iyo arrimo gudood sheegtaan bulshada iyo shacabka waxaan u sheegayaa waxaas oo dhan iyagaa galay haddeerna waa ku jiraan 4 sannadood buu socday dagaalka ceelafoyn dagaal beelad intaa ma socdo iyagaa xagga dambe kaga jira qoladan abtiyaday waxaan leeyahay cilidii lama lehin nimankaasaa col idinlaa kuwaasaa wallaahi ah oo bilaahi ah oo tallaahi ah ay sababtu tahay dembi waa la yaqaan maxaa loo qaban waaya dembiilaha haddii dawlada jirto maxaa loo qaban waaya dembiilaha maxaa ummadda loo xilxidhayaa maxaa shacabka loo xilxidhayaa gacan fududayaasha waayo yaa fududeeyey inay laayaan cid waxaa fududeeyey barasaabka gobolka taliyaasha qaybaha iyo arrimaha gudaha koreeladii diiday arrinkaa ee iga daba yimi aad iyo aad baan u hambalyeynaya sanaag bari aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waa guulaysanayaan waanu wada guulaysanaynaa isku dhinaca baanu nahay dhufayskaanu meelkooda geli doonaa gobolka sanaagna annagaa leh bulsho weynta reer somalilan waxaa leeyahay ilaahay intaa ka boqdaan waar ku mudaharada iska kiciya wax baarlamaanka iyo goortooda waxaan leeyahay waar waxaa cod u qaada odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay waraarka wax ha eegina jaabka cabdiraxmaan yaasiin british telefishinka RTN ceergaabo